عليكم ورحمة الله وبركاته. أمان داوداش شرفت لأكو حرين channel كينا سود وذا ولا ليال وقصاد الله يا بدن أو قلبي يشرك بجلجلس عندها نك الميسينس وقصة كوساب سنين كم إذا هان شريدات خاشعين الزاهدين عبادة بدن سيدو كلا وحا عن آد القرآن أخرس بدن وحو عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل ما يوقع من نقضي سحابة ولي وقوة وعبادة بدن wuxuuna ahaa nin aad u bartay diinta islaamka sidaas ay tahayna noqday fitnadii ugu weyneed ee muslimiinta soo martay wuxuu ugu dambeyn noloshiisa kusoo gabagabeeyay khaatimo aad u xun iyo shar aad u weyn wuxuu ahaa nin fadli badan oo khayr badnaa oo zuhdi badnaa laakiin gaaloobay oo gaalnimo ku dhintay ilaahay naga ilaaliyo noocaas camal Abu Hurayra waxaa laga wariyay inuu yiri rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam ayaana soo maray anagoo dhex fadhina jaamaca saxaabada kamid ah markaas uu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam waxa idin ku jira nin gooskiisu uu ka wan yahay naarta dhexdeeda buurta Uhud waa waciid iyo goodi aad u culus oo ka soo yeeray saadiqul masduq waciidkaas aad ka culusna waxay ku waajibtay mid kamid ah raggii meesha fadhiyay saxaabada ah balse raggii halkaas wada fadhiyay waxay ku dhinteen khayr iyo islaamnimadoodii oo wanaagsan ilaa markii laga reebo nin kamid ah reer Bani Xaniifa oo la oran jiray Rijaal bin Cunfuwa iyo aniga ayuu yiri Abu Hurayra ninkaas ayaa wuxuu kamid ahaa dadkii u soo waftiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam sidoo kale wuxuu ahaa nin laazimi jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam oo diintana ka bartay nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo quraankaba wuxuu ahaa nin cibaadadiisa iyo khushuucdiisa ay ka sheegnayd saxaabada dhexdeeda kadib Abu Hurayra waxa maskaxdiisa iyo qalbigiisa murug weyn ku beertay hadalkii nabiga uu yiri sallallahu alayhi wasallam maxaa yeelay ragga ay isla fadhiyeen meeshaas waxay ku dhinteen kulligood khayr iyo khaatimo wanaagsan waxa soo haray ayuu yiri Abu Hurayra aniga iyo ninka reer Bani Xaniifa Rijaal bin Cunfuwa markaas Abu Hurayra markasta oo uu arkay Rijaal bin Cunfuwa zuhdigiisa cibaadadiisa iyo khushuucdiisa ayuu isdhihi jiray talow ninka uu nabigu sheegay armad adigu noqota ee ahlu naarka ah wuxuuna dareemi jiray cabsi fara badan iyo walbahaar aad u badan iyo walwal iyo walac ilaa uu Yamaama ka soo baxay Musaylamatul Kadaab oo nabinimo sheegtay kadib Abu Bakr radiyallahu anhu ayaa Rijaal bin Cunfuwa u diray Yamaama si dadkaas uu xaq dacwada ugu yeero maadaama Musaylama ay rumeeyeen oo diinta ka baxeen si ay diinta dib ugu soo noqdaan ayuu marka u diray Yamaama wuxuu u diray Rijaal bin Cunfuwa Abu Bakr baa u diray khaliifkii islaamka ahaa kadib markii Rijaal uu soo gaaray magaalada Yamaama waxa soo dhaweeyay oo si qeyr caadi ah u martiqaaday Musaylamatul Kadaab alayhi la'na wuxuuna ku soo dhaweeyay dahab hanti dhaqaale aad u far badan ilaa uu Rijaal ku kasomay hantidii iyo maalkii adduunyo markaas uu Musaylamatul Kadaab wuxuu ku yiri Rijaal dadka waxaad ku dhahdaa inaad ka maqashay nabiga inuu nabinimada shuraaka igu leeyahay Musaylama sidii ayuu dadka isugu soo aruuriyay Rijaalna wuxuu ku horiyay dadkii waxaan qirayaa inaan maqlay nabigu inuu yiri sallallahu alayhi wasallam waxa nabinimada ila wadaaga Musaylama kadib dadkii oo dhan waxay raaceen Musaylama maadaama lagu kalsoonaan badnaa Rijaal bin Cunfuwa oo ahaa nin aad zuhdigiisa iyo khushuucdiisa iyo cibaadadiisa dadka oo dhan ka dhex sheegna hal maalin gudihiisa ciidanka Musaylamatul Kadaab waxay gaareen 40,000 oo nin bay gaareen kadib Abu Bakr radiyallahu anhu ayaa ciidan fara badan u soo diray oo Khalid bin Walid hogaaminayo ilaa Musaylama duulaan adag lagu soo qaaday ilaa uu Sharaxbil bin Musaylama uu yiri haddii maanta maartay aad muslimiinta aad ka adkaan weydaan oo iska dhicin weydaan oo carartaan gabdhihiinana waa la gursan carruurtiina maalkiina waa la qaadan kadib waxa dhacday in Ilaahay jalla wa ala gaaladii jabiyay Musaylamana la jabiyay kadib Musaylamana waa la dilay waxaana dilay Wahshi bin Harb radiyallahu anhu warda markaas Wahshi wuxuu dhihi jiray waxaan ahaa midkii dadka ugu khayrka badnaa midkii dilay oo Sayyidina Hamza radiyallahu anhu ayuu hadda ka hor dilay dagaalkii Uhud maantana wuxuu dilay waa Musaylamatul Kadaab oo nabinimo been sheegtay sidaas ay khaatimadii Rijaalna ku xumaatay markaas Abu Hurayra qalbigu u qaboobay oo niyadiisu degtay way raggii meesha fadhiyay kulligood khaatimo wanaagsan ay ku dhinteen ninkii soo baxay ee uu naarka noqdayna wuxuu noqday ninka reer Bani Xaniifa ee la oran jiray Rijaal bin Cunfuwa oo khaatimadiisa si xun u xumaatay oo Ilaahay khaatimada ka hadlay Ilaahay khaatimada inaga mahallay walaalayaal barakallahu fiikum wa jazaakumullahu khayr khaatimada Allah inoo hagaajiyo خير أمانتي الله نسيه شر أمانتي الله نجح حجابه
shaydaan iyo waswaaskii Allah inaga qabto quraanka iyo diinta iyo daacada Allah inoo macaanay Allah inoo soo hadalladii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo ducooyinka nabiga waxa mar walba kamid ahaa yaa muqallibal qulub thabbit qalbi ala diinik midka qulubka tagadgadiyo ilaahu qalbigayga waxaad ku sugtaa diinta annaguna waxaan leenahay ilaahu diinteena qalbiga ku sug ilaahu qulubtana diinta ku sug ilaahu qulubtana diinta ku sug barakallahu fiikum jazakumullahu khair channelka noo subscribe gare oo maarta share like comment gana naga hilmaan barakallahu fiikum jazakumullahu khair ilaahi wuxuu leeyahay nafna ma oga wama tadri nafsun maada taksibu gadan nafna ma oga bari waxay kasban doonto meel ay ku dhiman doontana ma oga sida daraadid walaalayaal khayrka iyo wanaaga mar walba waan isku kalmaysanayna khayrka isfarayna xumaantana waan iska reebayna ilaahina qaadan wanaagsan baan weydiisanayna mar walba. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.